Soo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu waa Fahiima. Waxaan ahay macallimad dhigta dugsiga hoose. Waxaan la noolahay walaalkay Cumar. Walaalkay da'diisu waa 21 jir iyo walaashay Nimca. Nimca da'deedu iyadana waa 12 sano. Hooyadii waxa ay dhimatay markii ay dhashay walaashay yar. Aabihii isaguna waxa uu dhintay 2 sano ka hor. Waxa uuna ku dhintay shir gaariyeed. Waxaan si adag ku karay in aan koriyo oon kafaalad qaado nolosha labadeeda walaalood. Waxa ayna ahayd arrin dhib badan ilaa laga gaaray maalin maalmaha ka mid ah. Aan inkaga sheekeeyay si ay qisadu ku bilaabatay. Maalin maalmaha ka mid ah anigoon fadhina miiska cashada ayaa walaalkay waxa uu yiri, waxaan kaaga baahanahay lacag. Laakiin waxaan ku idhi soo adiga shalay qaatay wax kugu filan bil. Wuxuu i dhahay iska daa adiga ee waxaad i deymisaa lacagtan aniga ayaa kuu soo celin doona markii aan helo. Waxaan ku dhahay halkeed ka keenaysaa masruufka. Wuxuu i dhahay ma i deymin kartaa kaliya adiga aniga ayaa kuu gudi doona. Waxaan ku dhahay waa ka soo fikiri doonaa. Markii aan soo fikiray ayaa waxaan go'aansaday in aan siiyo lacagta. Markii la gaaray habeenkii ayaan qolkiisa ku gargaraacay. Markuu furay waxa aan u dhiibay lacagtii oon ku idhi hoo lacagtan. Waa uu qaatay lacagtii wuuna ii mahadceliyay. Habeenkii oo dhan maana seexan waxa aan ka fikirayay arrinta labadeeda walaalood, khaasatan walaalkay. Waxa aan isweydiinayay halkuu geeyay lacagtan, anigoo Ilaahay ka barya in uu igu hanuuniyo waddada saxan oo uuna tuso wixii fiican. Ilaa aan ka maqlo daaqadda walaalkay qolkiisa oo furmayso. Markii aan soo fiiriyay daaqadda ayaa waxa aan arkay walaalkay oo daaqadda guriga dambe ka sii boodayo. Waan u soo orday dhanka qolka walaalkay. Markii aan soo gaaray qolkiisa ayaa waxa aan furay albaabkii, balse albaabku waa uu xirnaa. Waxaan is iri muxuu u xiray albaabka, ileen ma xiri jirin weligiis. Waxaan soo qaatay furihii guriga isbeerka ahaa. Markii aan guriga soo galay ayaa waxaan arkay sariirtiisa oo maran. Isla markiiba waxa aan go'aansaday in aan daba galo si aan u ogaado waxa ka dambeeya sirta saqda dhexe oo ku baxay xilligaas. Waxa aan ku sugo codka inaan maqlo sariirteeda ayaa markii dambe waxa aan maqlay walaalkay oo daaqadda ka soo gelayo. Markii uu soo galay ayaa uu seexday. Waxa uu seexday hurdo aad u dheer. Waxaan go'aan ku gaaray in aan asaga daba kaco si aan u ogaado sirta ka dambeysa. Markii la gaaray habeenkii dambe ayaa waxaan u soo dhuuntay qolkiisa si aan uga helo cadeymo. Waxaan go'aan ku gaaray in aan baaro moobilkiisa. Markii aan soo galo qolka ayaa waxa aan arkay isaga oo hurda. Moobilkiisa markii aan baaray cabaar waxa aan arkay message u saaran meesha kore. Markii aan message-ka furay ayaa waxa aan arkay fariin ay ku qoran tahay sida tan: kulankii maanta waxaan u dib dhiganay beri saq dhexe ee markaas imow. Markii aniga aan yaabay ayaa waxaan ka baqay in uu igu soo kaco. Sidaas daraaddeed si degdeg ah ayaan ugu laabtay qolkayga. Habeenkii xigay aniga oo iska daawanaya moobilkayga ayaa sida caadada ahayd waxa aan maqlay shanqar. Markii aan soo aaday daaqadda ayaa waxaan arkay walaalkay oo ka sii baxaya daaqaddii. Si dhaqso leh daaqadda ayuu ka booday waa uuna cararay. Isla markii waxaan soo aaday moobilkayga waxaana wacay nin darawal oo tagsiga noo kaxayn jiray. Waxaana dhahay si dhaqso ah waa inaad iigu imaadaa. Markuu imaaday ayaa waxaan ka codsaday in uu daba kaco meesha uu u socdo walaalkay. Wuxuu igu dhahay halkan ayuu tagay walaalkaa ma hubtaa in adiga aad geli kartid meeshan. Waxaa laga yaabaa in ay jiraan meeshan meel aamin inay ahayn oo naftaada ay khatar ku geli karto. Waxaan ku dhahay walaalkay ayaa iga daran aniga. Waxaa muhiim ii ah walaalkay inaan ilaaliyo waayo isaga hooyo iyo aababa ma haysto. Waxaan baadgoob ku jirnay ilaa aan ka aragno kuraas iyo miisas ay fadhiyaan walaalkay iyo 3 kale oo dhalinyaro ah. Waxaa 3daas dhalinyaro jirkooda ka muuqday tattoo. Waxa ayna ahaayeen kuwo xoog badan. Walaalkay iyaga ayuu ku dhex jiray isaga oo ciyaaraya turubka, laakiin uma ekaan mid faraxsan. Waxaan ka codsaday ninka tagsiga in aan meeshan joogno si aan u ogaano waxa ka dambeeya ayaga kulankooda saq dhexe xilligan. Isla markiiba gaariga ayaan ka soo daagay si aan u aado xaggooda. Ninkii darawalka ah ayaa i qabtay waxa uu dhahay waxaa laga yaabaa in ay ku dhibaateeyaan ka joog. Isla markiiba waxaan aragnay raggii oo dilay walaalkay. Waxa uuna dhahayay lacag ma haysto ee markaan idaaya. Ninkii kale ayaa waxa uu ku dhahay waa markii kuugu dambeysay. Fursad ayaa haysataa caawa ilaa iyo caawa dambe. Haddaad noo keeni weyso lacagteena waxa kugu dhaca adiga ayaa ogaan. Ninkii tagsiga ayaa waxa uu dhahay hubaal walaalkaa waxa uu isticmaalaa daroogo. Waan soo orday aniga waan is hayni waayay. Markii aan dhex imaaday ayaga mise waaba ninkii tagsiga oo ka cararay meesha. Waxa uuna u baqayay naftiisa. Markaan walaalkay imaaday
agtiisa ayaa waxa aan ku bilaabay canaan. Waxaan dhahay ma sidan ayaa ka dambeysay kalsoonida aan kugu qabay. Wuxuu weydiiyey ninka kale yaa waay gabadhan. Aniga ayaa u jawaabay waxaana dhahay waxaan ahay walaashiis. Ninkii markii uu farxay walaalkii waa uu inkiray wuxuuna dhahay aniga ma aqaanin ee rumaysta gabadhan meeshay ka imaadeen ma ogi. Waa uu ii baaqayay balse aniga ma fahmayn. Markaas ayaan ku qayliyay oo dhahay ma waxaad ii bilowday inkiraad soo anigu ku soo koriyay oo walaashaa ma ahi. Ninkii ayaa dhabarkayga qabtay waxa uu inay dhahay waxaan haysanaa jaanis adiga ayaana ku qabsanaynaa beddelkiisa. Isla markii walaalkii qayle ayuu bilaabay waxa uuna dhahay midaan ilama ay dhalan. Markaas ayaan fahmay in uu ii inkirayay si uu ayaga ii qabsan oo uu iga celiyo. Isla markiiba walaalkii ayaa soo istaagay waxa uuna qabsaday gacantayda isagoo ku qayliyay nimankii. Wuxuu i dhahay soo orod. Tagsiga ayaa noo imaaday waana kornay isla markii ayaan ku boodnay waa uuna nala cararay. Waxaan ka cararnay nimankii waana ka soo badbaadnay. Markii aan guriga imaanay walaalkii waxa uu iga codsaday in aan iska cafiyo. Waxa uuna ii sheegay in aan qaldanaa. Wuxuuna i dhahay maanta ka dambe uma noqon doono ficilkaas. Waxaan weydiiyey waxa ku kallifay waxaas. Wuxuu ii sheegay in lacag la'aan darteed ay u geysay waxaas. Markii dambena uu noqday qof khamrayste ah. Waxa uu ku iibin jiray iskuulkiisa daroogada. Waxaan ku dhahay haddii xataa aad lacag haysan kuguma kallifayso in aad waxaad samayso. Waa dembi weyn waxa ayna dishaa jirka. Waxa uu ii sheegay in uu iska joojin karin waayo wuxuu gaaray heer khatar ah. Waxaan dhahay aniga ayaa ku saacidi doono waana kula garab istaagi doonaa. Isla markii hab ayuu i siiyey waxa uuna ii sheegay in aan ahay walaasha adduunka ugu fiican. Maalintii dambe tagsiga ayaan soo raacnay waxaan u soo jeesanay dhanka nimankii walaalkii lacagta ku lahaa. Lacagtoodii ayaan siinay. Walaalkii markiiba waxaa la geeyay isbitaal waxaana laga soo xaaqay wax allaale wixii ay daroogada dhibaatooyinka u geysteen. Waan ka soo tagay walaalkii waxaana soo aaday xagga bannaanka. Markii aan soo baxay ayaa waxa aan wacay booliska si aan ugu dacweeyo nimankii. Isla markiiba waxaa la soo qabtay ayaga waxaana la geeyay xabsiga. Sidaa darteed hadda aniga iyo walaashii keligeen ayaa guriga joogno waxaana sugaynaa walaalkii si uu noogu soo naabto. Bye bye.